soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa dumarka iyo ragga Soomaaliyeed. Anaga dadka kale adduunka waxaan nagama gelin. Waa Farax Luga Baasta iyo Xaliimo. War gabdho soo dhawaada ayaantan gabar waxaa jirtay xijaaban indho shareer wadato asturan maasha Allah qurux badan laakiin waxa ay ku hadlayso wax diinta ay tilmaanta xataa aan ku sheegi karin. Ma ila aragteen gabadha maalmaha dhahayso waxaa la yiraahdaa nin oo haday gabadhaada waxa sameey weyso suunka ula bax xanuunji xagee diinta kaga taala in qof bani aadan suun inta loo qaato la xanuunji nabiga waa dhahday caruurta yaryarka ka dhasheen ilaa 7 diinta ku bahalkii uu sheega 10 kana waxa la ku garaacana ma aan xanuunjiyan gabadhan ay sheegaysay waa xanjafiya alashan korkiisa qofka xataa nabiga markuu leeyahay maaragtay gabadha ninkeeda ma xal laha ha garaaco waa garaacana bararkigeeynin barar xabadan wixii tirsoon kala bixi tir adeer ay xanuunji xabada war walaalay hadii xamaasad ku hayso maaragtay horta adigu yaa ku banay intaas oo nin hortooda inaad horta carabkaada ka maqlaan saacada keentay mugta arinta diinta maaragtay adaa meel khaldan ka soo gashay ilaahay khayr ha ku siiyo adduunka hadii la yiraahdo qof walbo hal xisaabiyo wax uu sameeyo nolosha ma socayso nolosha way ku socayay in la isku tanaasulo oo marka qaar qofkan wuxuu sameeyay indhaha qabsatid adigu marka waxyaalaha qaar oo sameeyay indhaha qabsatid laakiin hadii la isdhaho nolosha hal xisaabiyo wallahi aysan waxba socoyin marka xabadan dhaaday nimanka soo kala baxa wala sheeyay ilaahay khayr ha ku siiyo adigu yaa ku dhaa intaas oo nin soo hor istaagay dadkan uma xaadiray adiga yaa ku dhaa ya diinta dabaraysid maaragtay si caadi u bar nin oo cunsuri inta wax ka soo dhigaysata annaka noola imaanin ilaahay khayr ha ku siiyo horta dumarka maxaa la diinta ka tiri maxayse dadkan caadiga ka dhahin hadda reer galbeedkan adduunka maanta dhahayo dumarka xuquuqda bani aadamka u doodayna waxa xuquuqda dumarka u doodayna dhaha xuquuqda dumarka waxa ku ciyaar waa reer galbeed way adoonsadeen way kala gateen balka waran nin xaaskiisii gadahayo oo gabadhiisii gadayo xaaskiisii ilmaha u dhashay suuqa tookana wuxuu leeyahay waa 5 dhal waa 4 dhal cuntada karinta qaanada fadda ku fiican sariirta ku fiican intaas oo nooc sariirta ku qanciyayso waa adoo ida soo qakeysatay oo tiri idahan waa deex waa lagu caafimaada waa kan taas oo kale reer galbeedka markii hore ahaan jireen istabistada ugu soo gudbeen alashan waxa la taaka ugu soo gudbeen heeray maxaa la dhahan okay ninkii naagta waa siman yihiin maxaa la yiraahdaa gabdhaha shaqo tagto laakiin ha shaqo tagto waxa waaye mushaarka ninka oo qaata ma qaadaysa ka yar qaadayeen way soo socotay ilaa maanta ay imaadeen ninkii naagta waa siman yihiin oo xataa isla ekaashihii nimanka naagaha ee reer galbeedka maanta ay geliyeen cunuga dhasho inuu magacna aabaha ka qaato magacna hooyada laakiin wali su'aasha isweydiiyaha waxay tahay mataqaana magacu hooyada ka qaatay kasoo qaad adigu waxa lagu dhahaa Faadumo hooyada waxa la dhahaa Xaliimo hooyada waxa la dhahaa kasoo qaad maxaa la dhahaa Xaawo reer galbeedka markay dhahayaan hooyada iyo aabaha cunuga hooyada magaca ka qaata aabaha magaca ka qaato ma ahan Faadumo Xaliimo Xaawo ma la dhahayo laakiin adigu waxa lagu dhahaa Faadumo Cabdi Xasan lagu dhahaa ka soo qaad cunugaada marka wuxuu qaadaha Xasan ku ka qaadahaade maxaa benta la isku sheegay wali nin level uu abtirso hooyaa yaa xabiibana reer galbeed idinka xataa maxaa benta noogu sheegaysin oo noo dhehaysin nin inaaga anaga sinna hadaa sinteen waa ina Faadumo Xaliimo Xaawo Cabdi la bixin oo hooyadii lagu abtirsada laakiin hooyada lagu abtirsaha hooyadii ku abtirsatay aabaheedii ku abtirsatay adiga hooyada magaceeda cunuga qaadaha Faadumo Cabdi Xasan markii lagu dhaho oo la dhahay Xasankii oo qaato cunugii adiga waxa ku abtirsada mal adeer nin lagu abtirsada ninka ama ha ku dhalo ama ninka aad hanaqdo wabillahi tawfiiq waa nin ma ahan gabar laakiin markii diinta imaato yaa xabiibti ilaahay ku karaameeyay xita diloogan iyo ninkan ku tumo iyo suunka la kala baxay xanuunji yaa xabiibti wax la xanuunjiha meesha ma yaalin hadaa dumar tahay ilaahay wuxuu ku abuur inaad tahay xurul cayn hadaa ifka joogtan waxa tahay xurul cayn hadaa akhra joogtan waxa tahay xurul cayn hadaa akhra joogtid waa xurul cayn adigu waliga akhra ma ku aragtin xurul cayn oo niman ilaahay abuur jannada ku abuuray ma aragtay ma jirto laakiin dumar ilaahay jannada ku abuuray oo waxa jira maxaa la yiraahdaa oo ilaahay uu ku abuuray qurxoon oo ka wacay atraaba oo ilaahay ayadaha quraanka ku tilmaamay si qurux badan yihiin laakiin ma jiro nin aakhiro ilaahay abuuray oo jannadaas kaliya ku jiro ma jiro fiiri wixii nin waa shaqo u sameeyeen dib shaqo xakaar hooli u sameeyeen hada malaa'ikto kale waxa waaye waxay wataan magaca dakar nin watan
وأكوانا ونفتي قادان نفتي أوران محلها عنق لها أيجا نفتي كو أوريان محل هذا ويسود دجان وحي جيان فريمه كلا قادان كون كان هديك الجرير دعاي هدي فيضانات دعايان هدي محدعايان أدونك كون كان لن أصار المعركة ملائك وإلهي وشقي جلي أو نمان لكن تو مركي إلهي جنة وجي حر العين وكذا يا حبيبتي أدوك بركة إيماتي تاسوتي إلهي أورك إلهي آخر إيو ملائكتي أحد أوكي كصوتك وحقي ما تأفك يكون كان أنا أسارنا إمام نينك إلهي وحو أبر إنه مسؤول ناخذه مروا أبها أدوه مسؤول كايا ماشى ساحة لهد وحا عون لهد وحا عبل لهد وحا حر لهد عافمات كهذه wax kasta mas'uuliyadda aabaha mas'uulkeed guriga aabaha waa ka soo tagtay xariibtiin inay guursatay ninkeeda mas'uulka ah waxa cuntid waxa cabtid meel seexatid hatta gurigaas aan hagaajiyahay asaga laga rabaa inuu hagaajiyo ama qadaamo iyo hagaajiso oo ii keeno laakiin maadaama ummad faqri ah Soomaali ah wali aan waxay gaarin aan ka soo jeedno waa in la isku naxariista aniga hadda xanuunsado waxay dhinacdeedii daaweeyaan ma ahan asaga daaweey aniga asaga rarkaas kugu iimaana hadda xanuunsado ciideedina u noqdo لكن قرمي عدد أنا قاعد عدد يداويها وأمركم مسؤوليتي كصوب حنا يقول لك أنت ترى أنا ترترين سرت أن سحده يقول لك أساسية جيدا كي يجي رقم عدد يكري واحد كسي سماه يقول لك أنا هجاجي هاي لكن ما أنت جرد ريرك أو نقاي كيسو داويها مركع عارف ما نقول لك كسو نقاها يقول جروا كجذاها ناسك لكن ما دام ما تفخري عن كلام عنه هدان جرد أساسية يداويها وحول بيجي سماها هاي معركته وحاول هل سكون حريصته لكن هدين نقطة قف كس مسؤوليتي ساكسوا بحولين وحنتها إنك كمالهن إنك أصيغ وحنتها إنه ما أنت مسؤوليته أو قف كس هل سكوات كي أصيغ وحنتها إنه برانك كسر شقي يقولوا إنك عايش شقي مسكين يسوع أديك صرت الساحل ولا بس يريد كسقف مكان فراي وبراحة يريد كقف مكان فراي عزب مكان دي بسكر مكان دي بقفنا مكان سوق ليها يقولوا لكن صرت سنجيفة هذا لكن درع عن سيبنا حاجة كلك أديك أنا متكسر أخذ يكين وحمانا مالهن دين تاد هذا لكن هدي على سكون حريصته يا سواء كان سيقول لك سنترترا واجبني يكون معها لكن ومن باب النحريص هذا أنا كرتوا هذا أنا قرن عند حب يقول له مالها سئله حر عينه يقدر بدن أجو الدون كان نينك معركته نينك صومالي إيه أديكوا أمك كوجي جنتك أمك كوجي نرتك نما كمان هان معركته محل هذا نينك حديث كنبي حديث قف الأمر إنه قف سجود نقتل الأمر نينك سجود يس شيء وصحنت هاي حديث كذا حديث صح واي لكن حبيبي أديك ما شكته نكون كنا نرتجع قف قدمه هدو أبي هاي هدو ولا لي هاي هدو نك هدي مسؤولية وأديك ما أنت كهاي سيتا أوصل بحي واي حبيبتك كنا نرتجع ولا كه أوصل ريا ولا كه حاله هاي بقولك لحالك بقول لي أديك كنت أنا لهذا ميت ودي سببت كنت أنا كلها أسيق بقول كلية لأن أديك أدون كويا حبيبتي كنت كان أديك هي ستيد لحالك أباها كنت كقاعدته waxaa xaq u leedahay adoon kun ka cunin dhaxalkaadi inuu walaalka meel seexato waxa cunto waxa cabto waxa xiratay caafimaadkaada mas'uuliyadooda ka soo baxo ma kugu xisaabtami kariyo kontanka adiga ah haysatid kontanka haysata cunku ma dhigi kariyo soo ku dhaha xabiibta adiga kontanka qaadatay yaa ku siiyay waa mas'uuliyaddeeda ah haysa li'anno anta qadaam li ana shaqaale ii tahay xogo carabiga xanaaqa iga keen xabiibta sheeqadaas meesha isu istaagto ninka tirisoon kala bixinaagta xanuun jacayliga hayaano روبي لا تثق فيديو قد ما ذكر بدنا إدريجيها